ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa 5 baabuur oo nooca dagaalka wax ay ku weerareen Korneel Cali Xubey oo kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahaana sargaal firfircoon oo qayb weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo ciribtirkooda. Korneelka oo ku sugan maqaayadda Beach View ee magaalada Muqdisho ayaana 5 baabuur oo nooca dagaalka lagu hareeriyay iyada oo qoryo lagu qabtay isla markaana uu galay xaalad halis ah naftiisa isaga iyo ilaaladiisa. Korneelku waxa uu watay gaari cabdibila ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku buufsan yihiin ahaana gaarigii isagu uu watay oo staafkiisa oo saarnaa isla markaana gaarigaasi qoraga loo yaqaano dhashiiku kuma xirneen oo wuxuu ahaa cabdibila dulbanaana oo isaga iyo 5 staafkiisa ah ay saarnaayeen. gaarigu banaanka ayuu yilay taliyuhuna gudaha ayuu ku jiray hal mar ayuuna ka war helay iyadoo staafkiisu ay ku wargelinayaan in gaarigii 5 baabuur oo ciidanka dawladdu ay leeyihiin ay hareereeyeen la leeyahayna gaarigan ayaan ka xisaneynaa. khilaaf ayaa arrintaasi ka dhashay waxaana ugu dambeyntii arrinta soo galay sida la sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo laftirkiisa aan arrinta uga qayb qaadanin si dhexdhexaadnimo ah. haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee loo bartilmaameedsaday iyada oo taliyaha gaarigiisii isagu uu ku socday laga qaatay oo xoog looga wato? sababta ugu weyn ee ninkan loo weerarayo waxay tahay kaliya waxaad qaraabo tihiin madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo adiga xildhibaan ku ah. horay wuxuu ahaa taliye urur xilkii ayaa laga qaaday oo dawladdan ayaa xilka ka qaaday. sababta looga qaadana waxay ahayd kaliya Shariif ayaa xildhibaan ku ah. sidaas oo kale waxa hadda looga qaatay gaarigiisii oo loo weerarayaa waxay tahay Shariif ayaa adiga ku metelo oo xildhibaan ku ah oo looga baqrin qabaa darteed inay wada shaqeysaan. marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxaddii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed. halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta, waxaa lagu dhisaa mustaqbal. marwa waa furaha qoyskaaga. berri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. sidaan wada ognahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu ka dhashay beesha Agoonyar Gaabane oo ah ciidanka ugu badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ah ciidanka ugu badan ee koofiya casta madaxweynaha xafiiskiisa ilaalisa ku jira. sidaas darteed askartaas lama dhihin Shariif ayaa madaxweyne idin ah, laakiin saraakiishii waxa loo bartilmaameysanayaa Shariif ayaa xildhibaan idin ah oo idin metela. Korneel Cali Xubey maqaayadda Beach View ee magaalada Muqdisho ayaa lagu weeraray isaga oo halkaasi si nabadgelyo u jooga isla markaana isaga shaahayaan isaga iyo asxaabtiisa wax problem aan wadanin ah sargaal xilkii laga qaaday oo dawladdu ay shaqadii ka joojisay isagoo aan waliba wax qalada qaranka ka sameeyay ama u geysanin. wuxuu ahaa ninkii khawaarijta